Filimka ayaa ku bilaabanaya ayadoo nala baraya geesiga filimka kaasoo magaciisa la yiraahdo Mason. Mason wuxuu naga sheekeynayaa taariikhdiisa. Wuxuu leeyahay waxaan soo maray tababar adag, waxaan ahay kooxdayda ninka ugu adag. Intaa kadib Mason iyo kooxdiisa waxaa loo dirayaa howlgal. Howlgalkaasi ay ku soo afjarayaan nin la yiraahdo magaciisa John. Intaa kadib Mason iyo asxaabtiisa waxay soo qaadeen dagaal oo waxay soo aadeen dhankii John. Intaa kadib John wuxuu ogaanayaa asxaabtiisa in lagu soo weeraray diyaarad helikabtar ah. Mason wuxuu u soo degayaa dhulka. Intaa kadib waxaa soo weeraraysa diyaarad daroollis ah. Waxay soo ridaysaa diyaaraddii ay saarnaayeen kooxda Mason. Kooxda Mason meesha ayaa lagu soo afjarayaa gebi ahaan. Muddo kadib waxaan arkaynaa Mason oo ka murugoonaya dhacdadii ku dhacday asxaabtiisa. Intaa kadib wuxuu isku diyaarinayaa shaqadiisa. Wuxuu meesha ka soo kaxaynayaa gabadhiisa oo wuxuu keenayaa kollejka. Intaa kadib wuxuu ku soo laabanayaa xafiiskiisa. Mason isagoo xafiiskiisa jooga ayaa waxa uu imaanayaa nin kaasoo dacwo ka ah xaaskiisa. Intaasi kadib marka uu ka soo tago ninka asagoo fadhiya kursiga murugooni ayaa waxa uu imaanayaa mid ka mid ah asxaabtiisa kaasoo ka wada tirsanayeen ciidanka. Wuxuu meesha ka soo kaxaynayaa Mason. Wuxuu keenayaa xaruntii saaxiibkiisa. Wuxuu u sheegayaa xaruntan inay tahay xarun amni ah oo inta badan lagu ilaaliyo amniga dadka. Wuxuu kaloo leeyahay wax walba oo dhaqdhaqaaq ah waxaa lagala socdaa meeshan. Wuxuuna u sheegayaa asiga inuu ka yahay xaruntan madaxa amniga. Mason saaxiibkiisa wuxuu ku leeyahay waxaad halkan ii keentay waa inaad ii sheegtaa. Asigoo su-aasha weydiinaya wuxuu TV-ga ka arkayaa John waa ninkii laayay asxaabta Mason. Saaxiibkiisa wuxuu u sheegayaa inuu u hayo shaqo. Mason saaxiibkiisa wuxuu ku leeyahay waan ogahay in uu laayay John asxaabtaada. Intaa kadib wuxuu ku leeyahay waxaan rabaa gabar wareysi ka soo qaadayso John inaad u noqoto ilaalo. Mason wuu diidayaa waliba wuxuu og yahay saaxiibadiis inuu laayay John. Intaas kadib saaxiibkiisa wuu u sheegayaa wuxuu leeyahay waan ogahay in ay kugu adag tahay arrintan, laakiin shaqadan waxay ku kooban tahay hal maalin oo keliya waxaana ku sii doonaa $20,000. Mason wuxuu ogolaanayaa shaqada. Wuxuu ka soo tagayaa meesha. Wuxuu imaanayaa guriga. Wuxuu laabtoobkiisa ka daawanayaa gabadha weriyaha taasoo la guddoonsiinayo koob. Intaasi kadib Mason wuxuu isku diyaarinayaa shaqadiisa. Asigoo soo baxay ayaa xaaskiisa weydiinaysaa xageed u socotaa. Wuxuuna u sheegayaa in uu qabanayo shaqo hal maalin ah. Xaaska Mason waxay u sheegaysaa in Mason dabeecadihiisa ay wax ka qaldan yihiin. Waxay leedahay dabeecadii hore aan kugu naqaanay ma ka ahayn, laakiin waxaan kaa rabnaa laabadka labaad aad soo laabanayso inaad la soo laabato dabeecadii hore aan kugu naqaanay. Intaasi kadib Mason meesha ayuu iskaga soo tagayaa oo wuxuu u imaanayaa gabadha weriyaha oo asiga sugaysay. Waxay soo raacayaan diyaarad. Marka ay diyaaradda soo raacaan Mason mar kale wuxuu daawanayaa muuqaal ay dhiibtay gabadha weriyaha. Intaa kadib waxaa gadaashiisa ka soo muuqanaysa gabadha weriyaha waxaana ku leedahay ma aniga ayaa i jaajuusaysay. Mason wuxuu ku leeyahay maya, laakiin waxaan ula dhacay qaabka aad wax u wareysanaysay. Gabadha weriyaha waxay u sheegaysaa in ay tahay qof caan ah waxyaalahan inaysan ka helin. Waxay imaanayaan eelaboorka banaankii waxaa u taagan John. Wuxuu meesha ka soo qaadayaa Mason iyo gabadha weriyaha asigoo ku soo qaadaya gawaaridiisa. Intii jidka ay soo socdeen marka ay soo gaaraan buundada ayaa waxaa soo weeraraya koox calooshooda u shaqaystayaal ah ayagoo baabuurtii John qarax ku xiray. Waxaa meesha ka dhacaya dagaal weyn kaasoo lagu laynayo ciidanka John. Intaasi kadib Mason wuxuu la soo baxayaa xirfadiisa dagaal isagoona la dagaalamaya ciidanka soo weeraray John. Ugu dambeyn wuu ka adkaanayaa ciidankii soo weeraray John. John wuxuu ula dhacayaa qaabka u dagaalamayo Mason. Wuxuu leeyahay waxaad tahay qof diyaarsan, kaliya ayaa koox u dhigma ayuu leeyahay. Intaa kadib Mason wuxuu u sheegayaa in waqti xaadirkan uu ka helan faallada. Intaasi kadib wuxuu u sheegayaa in ay kasoo tagaan meeshan. Waxaa laga yaabaa mar kale inay ciidan nagu soo weeraraan. Waxay soo aadayaan dhankii Yuhuudka. Mason wuxuu wacayaa saaxiibkiisa wuxuuna u sheegayaa wixii meesha ka dhacay. Intaasi kadib wuxuu leeyahay waxaan rabnaa caawimaad. Mason saaxiibkiisa wuxuu leeyahay John waa inaad weydiistaa caawimaad. Wuxuu u sheegaa Mason ciidankii John dhammaan in la laayay. Intaasi kadib Mason saaxiibkiisa waa la yaabaya wuxuuna leeyahay ugu dambeyntii aniga ayaa nii soo diraya. Mason saaxiibkii wuxuu u sheegayaa in haddeer la arkay GPRskooda loona imaan doono. Intaa kadib waxaan arkaynaa wiil oo adeer u yahay John
kaasoo isku diyaarinaya inuu qabto xilka John. Wuxuu qorsheeyay shirqoolkii lagu dili lahaa John. Intaa kadib waxaa meesha imaanaya sarkaalkii ciidankii kaasoo ammaanaya wiilka John adeerka u yahay. John wuxuu wacayaa wiilkuu adeerka u yahay wuxuuna u sheegay inta dadku ku soo socday in lagu soo qaaday weerar la laayay ciidankiisii dhammaan. Wuxuuna leeyahay waxaa ila socda nin geesi ah kaasoo laayay ciidankii dhammaan ee aniga ugu soo qaaday weerarka. Intaasi kadib wiilka adeerka u yahay John wuxuu weydiinayaa meesha haddana uu ku sugan yahay. John wuxuu u sheegayaa in uu joogo hoodka. Kadibna wuxuu leeyahay waxaan rabaa in la imaado la siiyo caawinaan. Intaasi kadib John wiilkiisa wuxuu ku leeyahay waa lagu imaan doonaa, waxaan kuu soo dirayaa ciidankayga meeshiina sii jooga oo ha ka tegana. John wiilkuu adeerka u yahay wuxuu u soo dirayaa jarnaalka wuxuuna u sheegayaa mar dambe inuusan ka baxsan adeerkiisa ay ku soo baabaashaan hoodka asiga iyo ninka la socdaba. Intaa kadib jarnaalka meesha ayuu kasoo tagaya oo wuxuu soo aadayaa dhankii John. John aad ayuu u farxaya oo wuxuu leeyahay wiilkayga ayaan wacay, haddeer caawinaad ayaan helaynaa. Mason midaan kuma faraxsano oo wuxuu leeyahay aniga halkaan ma sii joogi karno, nafteena waxay galaysaa halis, adiga haddaa rabto waa sii joogi kartaa meesha. Mason wuxuu kasoo tagayaa meesha asii gabadha weriyaha ayaa is soo raacay labadooda. Gabadha weriyaha Mason ayay ku qaylinaysaa waxayna ku leedahay aniga waxaan meeshaan u imaaday inaan wareysi la yeeshto John, maxaad iigu diiday inaan la yeeshto John wareysi? Mason wuxuu u sheegayaa John haddeer noloshiisa inay ku jirto halis, wuxuuna leeyahay haddaan fursad kale ku helno ayaad la yeelan doontaa wareysi. Intaasi kadib labadooda buuq ayaa ka dhex bilaabanaya. Mason wuxuu isku dayaa gabadhan inuu wax fahansiiyo laakiin ayada wax ma fahmayso. Intaasi kadib way ka caroonaysaa oo ayagoo banaanka taagan ayaa meesha waxaa kasoo muuqanaya diyaarad. Mason wuxuu kasoo cararayaa meesha. Diyaaraddii waxay bilaabaysaa inay weerar ku soo qaado Mason iyo gabadha weriyaha. Intaasi kadib Mason wuxuu sameynayaa qorigiisa ayuu la soo baxaya asigoo diiradda saaranayo diyaaradda. Intaasi kadib diyaaradda wuxuu kusoo ridayaa dhulka. Dhanka kale waxaa soo weeraraya ciidankaasoo la dagaalamaya Mason. Intaa kadib askari ayaa ku qabanaya qori oo wuxuu damcayaa inuu dilo weriyaha iyo Mason. Waxaa gadaal ka tooganaya John oo badbaadinaya Mason. Mason wuxuu leeyahay John xageed ka keentay bistooladan? Intaasi kadib John wuxuu u sheegayaa inuu inta badan isku difaaco bahashan oo amnigiisa ku ilaaliyo. Dhanka kale waxaan aragnaa John wiilkuu adeerka u ahay kaasoo ag taagan diyaaradda oo soo riday Mason. Waxaa meesha ugu imaanaya sarkaal kale wuxuuna u sheegayaa inuu marar badan isku dayay inuu dilo adeerkiisa laakiin uu ku fashilmay. Haddeer wuxuu leeyahay aniga ayaa garab ku siinaya saad adeerka ula dagaalami lahayd. Gabadha weriyaha waxay ku leedahay Mason waa iga saaxnad run ahaantii. Mason gabadha weriyaha wuxuu u sheegay inta inuu horey oo u yimaaday lagu laayay asxaabtiisa. Intaasi kadib wuxuu leeyahay qoyskayga aad ayaan u jeclahay laakiin ayaga waxay i maleeyaan inaan ayaga aan jeclayn, aniga inta badan ayaga ayaan ka murgaa. Gabadha weriyaha Mason waxay u sheegaysaa in uu yahay qof qalbi jilicsan waxayna ku leedahay runtii kuma hilmaami doono. Intaasi kadib meesha ayay ku wada kaftamayaan. Hadda John wuxuu dareemayaa farxad. Meesha ayay iskaga soo tageen oo waxay soo gaarayaan tuulo ayaga lagu soo dhaweynayo tuuladan. John markay arkeen dadweynihii aad ayay ugu farxeen ayaguna u soo dhawey si aad u qurux badan. Intaasi kadib waxay bilaabayaan wareysigooda. John wuxuu leeyahay aniga wadankayga wuu yaryahay laakiin waxyaabaha laga helo wadankayga ayaa aad dadka u anfacaya oo u muuqda in ay muhiim u yahay wadamada kale. Waa sida ay u rabaan inay u xukumaan wadankeena. Waxaan diyaar u ahay caqabo kasta oo soo wajahdo dadkayga iyo deegaankayga in aan la dagaalano cid walba oo na soo weerarto. Waxaan diyaar u nahay in aan ka faa'iidaysano waxyaabaha faa'iidada u leh dalkeena. Kadib wuxuu ka waramayaa waxa faa'iidada u leh dalkiisa. Waxaa jirto kiimiko aan ku sameyno baabuurta, moobilada iyo tiknoolajiyada iyo waxyaabo kale oo fara badan. Wadamada kale waxay arkaan faa'iidooyinka uu leeyahay wadankeena, waxay arkeen kiimikooyinkeena, waxay damacsan yihiin inay anaga ina soo weeraraan si ay u qaataan kiimikooyinkeena. Waxay rabeen in aan siiyo waxyaabo fara badan. Marka aan ka diiday ayay tani sameeyeen. Intaa kadib dadkii agtiisa joogay aad ayay ugu farxeen. Waxay u sheegayaan madaxweynahooda inuu yahay madaxweyne wanaagsan oo aad u qalbi jilicsan. Weriyaha iyo Mason waxay ogaadeen John inuu yahay qof qalbi wanaagsan
waxay go'aan ku gaareen inay caawiyaan. Waxay bilaabayaan ciyaar ayagoo ciyaaraya ciyaar qurux badan. Intaasi kadib waxay qaadanayaan waqtigooda. Maalintii xigtay, Mason wuxuu wacayaa saaxiibkiisa. Wuxuu ku leeyahay, maxaad aniga iigu soo dirtay shaqadan? Saaxiibkiisna wuxuu ku leeyahay, waxaan rabaa inaad ka faa'iidaysato shaqadan. Intaasi kadib, Mason wuxuu u sheegayaa, aniga hadda haddii aan u baahdo inaan soo afjari karo John gebi ahaan. Mason saaxiibkii wuxuu u sheegayaa John in ay rabaan qoladiisa inay asiga ay dilaan. Intaasi kadib, John wuu yaabayaa. Wuxuu wacayaa xaaskiisa. Taleefanka waxaa ka qabanaysa gabadhiisa. Mason gabadhiisa waxay u sheegaysaa inay aad uga xiiseen. Waxay ku leedahay, dhaqso noogu soo laabo. Intaa kadib, taleefanka waxaa ka qabanaysa xaaskiisa. Waxayna u sheegaysaa gabadhiisa yar inay aad uga xiistay. Waa inuu soo laabtaa waqti xaadirka. Wuxuu gadaashiisa ka arkayaa John iyo gabadha weriyaha oo wada ciyaaraya. Intaasi kadib wuxuu soo aadayaa xaggooda. John wuxuu u sheegayaa Mason inay xaaladdiisa ku jirto halis. Intaas kadib, John wuxuu weydiinayaa waxa asiga soo weeraray. Isla markaa waxaa meesha ka soo muuqanaya burcadii, taasoo raadinaysa John. Intaasi kadib waxay dhibaateynayaan dadkii tuulada ayagoo u gacan qaadaya. Kadibna waxay weydiinayaan John meeshuu kaga sugan yahay tuulada. Intaasi kadib, banaanka ayuu u soo baxayaa John ayagoo arkay tuugada John oo xaggooda u soo socda. Intaasi kadib, Mason ayaa isku hordhigaya oo faraskiisa ku qaadiya John. Tuugadii waxay soo raacdaysanayaan Mason iyo John. Intaa kadib, waxaa faraska ka dhacaysa gabadha weriyaha. Tuugada waxay qabanayaan gabadhii weriyaha. Waxaa imaanaya madaxa burcadka. Wuxuuna u sheegayaa gabadhan inay tahay gabar caan, laakiin wuxuu leeyahay geeridaada cid ogaan doonta ma laha qaabka lagu dili doono. Gabadha weriyaha aad ayay u naxaysaa. John iyo Mason waxay imaanayaan tuulo yar. Intaasi kadib waxay galayaan guri qadiimi ah kaas ay ku nasanayaan. John waxay is arkayaan saaxiibkiisii qadiimiga ahaa. Intaasi kadib wuxuu u sheegayaa dhibaatada asiga ku dhacday. Wuxuu leeyahay, waxaan kaa rabaa inaad i siiso garab. Saaxiibkiisa wuxuu u sheegayaa inuu sii doono garab. Sidoo kale waxaa meesha imaanaya burcadii ayagoo soo weeraraya. Intaasi kadib, madaxii burcadka wuxuu ka soo degayaa gaariga. Mason wuxuu ku leeyahay gabadha weriyaha waa inaad iska fasaxdaa. Intaasi kadib, madaxa burcadkii wuu ka diidayaa. Asiga iyo Mason waxay isku qabanayaan bistoolo. Mason wuxuu gadaal ka arkayaa John ay daba socdaan dadkii tuulada ayagoo ku mudaharaadayo burcadda soo weerartay xaafadooda. Intaasi kadib, burcadii ayay ku bilaabayaan inay ku shidaan dab. Gabadha weriyaha mid agteeda taagnaa ayaa waxay ka qaadaysaa qoriga. Intaasi kadib, meesha ayay ka soo baxsanaysaa. Tuugadii meesha ayay ka cararayaan. Gabadha weriyaha iyo Mason meesha ayay ka soo carareen. Intaasi kadib, waxaa u imaanaya John gabadha weriyaha wuxuu u sheegayaa inay diyaar u noqoto wareysigii ay ka qaadaleed xafiiskiisa. Intaas kadib, waxay soo aadaan dhanka xafiiska. Wuxuu ugu imaanaya kursigiisa oo ku fadhiya wiilka adeerku ahay. Intaasi kadib, wiilka adeerku oo naxaya waa boodaya. John wuxuu u sheegayaa wiilku adeerku yahay inuu asiga u ka baqan oona rabo inay si wadajir ah u maamulaan kursigan. Intaasi kadib, wiilku adeerku aad ayuu u calool xumaanaya, waayo sababtoo ah adeerkiisa qalad ayuu ka galay. Intaasi kadib, waxaa meesha ka soo muuqanaya jarnaalkii kaasoo xabad ku soo ridaya John. Intaasi kadib, John dhulka ayuu ku dhacaya. Jarnaalka waxaa meesha ku tooganaya wiilku adeerku ahay John. Asigana waxaa xabad ku soo ridayo jarnaalka. Ugu dambeyn, wiilkii John adeerku ahay asigana meesha ayuu ku dhimanaya. John aad ayuu u oonaya markuu arko wiilku adeerku ahay oo meesha ku dhimanaya. Dhinaca kale waxaa imaanaya askartii amniga. Kadibna John ayaa la hadlay. Wuxuuna u sheegayaa inuu yahay madaxweynihii, waa in ay difaacaan ammaankiisa. Dhinaca kale waxaa meesha ka soo muuqanaya burcadii ayagoo meesha ka bilaabayo dagaal. Mason asigana wuxuu la dagaalamayaa burcadii suu u soo gabagabay lahay burcadda. Intaasi kadib, gabadha weriyaha iyo John meesha ay iskaga soo carareen. Gabadha weriyaha waxay bilaabaysaa inay ku duubto dagaalka meesha ka dhacay taleefankeeda gacanta. Intaasi kadib, Mason iyo burcadii meesha ayay isku dagaalayaan. Burcadka weyn wuxuu rabaa gebi ahaan inuu soo afjaro Mason iyo John iyo gabadha weriyaha. Burcadka weyn ayaa meesha ka soo muuqanaya. Asiga Mason ayaa isdagaalaya. Labadooda waxay iskula tagaan gacmaha. Intaasi kadib, Mason ayuu damcaya burcadka weyn inuu dilo asigoo u qaadanaya mindi. Intaasi kadib,
waxaa meesha imaanaysa gabadha wariyaha taasoo madaxa burcadda ku dhaawacaysa meesha. Intaasi kadib Mason waa xanaaqaya, wuxuu soo qaadanaya qori weyn asagoo si geesinimo ah u baabi'inaya ciidanka burcadda. Gabadha wariyaha iyo John waxay la yaabeen ficilka uu sameynayo Mason. Intaasi kadib gabadha wariyaha waxay ka duubeysaa Mason qaabka uu u dagaalamayo ayadoo la yaaban dagaalkiisa. Intaasi kadib filimka ayaa meesha kusoo gabagaboobay. Fadlan haddaad ka heshay muuqaalkan, fadlan ha hilmaamin inaad taabato calaamadda subscribe-ka, like-ta, share-ka, commentiga. Waa ku mahadsantahay daawashada.